السلام عليكم maanta mawduuceen wuxuu ku saabsan yahay waxaad la nooshaa wixii tagay mawduuceen intaanan faahfaahin ka hor fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar mar kale kusoo dhawow mawduuceen oo faahfaahsan had iyo jeer waxaad ka fikirtaa wixii tagay waxaad xasuusataa guuldarradaadii hore waxaad xasuusataa dadkii ku xumeeyey waxaad xasuusataa dhaawacyadaadii ku soo gaaray waxaad xasuusataa dadkii ku dhacay waqtigaada oo dhan waxaad ku mashquulsaday xasuustii wixii tagay markaad tahay mid sidaan dhaqankiisu yahay marnaba suuragal maaha inaad horumarka samaysid oo nolosha guul ka gaartid wixii hore way tageen wax tagayna tiigsimaad ma leh ee hore u soco wixii hore xasuustaada keliya ha kuu noqoto cashar aad wax ka barato ugana faa'iidaysato dhisidda mustaqbalkaada dadka qaniga ahi maaha qaar ku mashquula wixii tagay cashar bay ka bartaan horeyna waa uga socdaan dad badan waxay ku keentaa xanuuno ka mid yihiin macaanka dhiigkarka xanuunka walaaca stresska waana iyagoo ka murugaysan wixii dhacay oo keliya fiirinaya murugadu wixii tagay soo celin mayso wax joogana wax ka tari mayso horumarkaadana way kuu diidaysaa waxaa taas kusii dheer caafimaadkaada ayay waxyeelaynaysaa marka haddii aad tahay mid had iyo jeer wixii tagay uun ka murugoodo ogow inaad noqon karin qof horumar dhaqaale ka gaaro nolosha murugada xal ma ii keenaysaa maya xal kuma keenayso ee cudurro oo keliya kuu keenaysaa marka muhiimiyaddu waa inaan fiirinaa xalka dadka guulaystayaasha xalkay raadiyaan waad ku mahadsantahay la socod